dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku dhaqan magaalooyinka Somaliland gaar ahaan kuwa suuq joogta ah ee aan haysan cid daryeesha ayaa inta badan waqtiyada Ramadaanta waxa saameyn ku yeesha bisha Soonqaad. dadkan ayaa daranyada xanuunka ay qabaan waxa u dheer cunto la'aan sababtoo ah waxa la xidhaa dhammaan goobihi ay ka heli jireen cuntada gaar ahaan hudheelada cuntada ama makhaayadaha bisha Ramadaan awgeed. taa beddelkeedana ma jirto ama way yar tahay cid quudisa. isbitaalka guud ee Hargeysa qaybtiisa lagu xanaanayo dadka xanuunada dhimirka qaba ayaa ka mid ah goobaha tirada yar ee dadkan buka lagula tacaalo isla markaana loogu diyaariyo waxyaabo ay cunaan. hase ahaatee waxa badan oo daryeel u baahan dadka ehelkoodu awoodi waayeen inay geeyaan goobaha lagu xanaanayo dadkan ama aan lahayn ehelba. Dr. Mustafa Xuseen Xirsi waa agaasimaha qaybta lagu xanaanayo dadka xanuunada dhimirka qaba ee isbitaalka guud ee Hargeysa. waxaan weydiiyey gaajadu sida ay saameyn ugu yeelan karto ama ay u kobcin karto xanuunada horeba ay dadkan u qabeen iyo sidoo kale saameynta ay bulshada taasi ku yeelan karto. runtii haddii gaajadu waa col orta intaanan kaa maskaxda ka gaadhinba ka fiyowba laftiisu hadduu dee 2 cisho 3 cisho gaajoodo dee dabeecaddiisa oo dhan way isbedelaysaa. kii xanuunsanayna maxaad malaysaa marka wuxuu noqonayaa xaalad adag buu gelayaa inuu dagaalamo gelayaa inuu wax walba uu shiitamo dee dhibaato fara badan buu qofkii marka waxa laga yaabaa haddii xitaa ladnaayo oo kale uu deganaayo oo bulshada ku dhex jiray oo kale dee inuu kululaado oo uu xoog u kaco oo uu dagaal bilaabo dee ayaa dhici karta. geesta kale waxaa jira koox dhalinyar ah oo iskood isu abaabulay kuwaas oo isu xilqaamay inay quudiyaan dadka danyarta ah qaybna ay ka yihiin dadka xanuunada maskaxda qaba. kooxdan dhalinyarta oo la yiraahdo magacooda Somaliland Life Makers ayaa Nimco Ismaan Cabdi waxay ka mid tahay dhalinyaradaasi. waxay iga warantay hawsha ay qabtaan. horta alxamdulilah ilaahay baa mahadle. horta marka koobad inaan mahad celinay weyn dadkan noogu soo tabarucay lacagta allah ka jisaas iyo miisaanka xasanadkan allah ugu daro. waxaanu sameynaa walaal barkada waxa weeyaan afur baan diyaarinay bisha Ramadaan. waxaan u diyaarinaa dhowr goobood baan u diyaarinaa dhakhtarka weyn dhakhtarka jajabka ee halka carwada la yiraahdo xarunta naafada iyo suuqa weyn ee bartanka Hargeysa. inta badan suuqa bartanka Hargeysa inamadan u dirnaa dadka masaakiinta dadka dhimirka ah ee sheegtay wala dukaamadii laga xidhay hudheeladii laga xidhaan u qaybino. halkaas oo kale waxaan ugu talagalnaa 300 ama 400 baabeelaas la geeyo suuqa hoose deetana kaas lagu qaybiyana mad ugu qaybiyaan. dhakhtarka meesha xarunta naafada oo kale halkan waanu geynaa dhakhtarka weyn waxaanu geynaa qaybta dadka inta ugu jilicsan ay jiifaan. hase ahaatee taa macnaheedu ma aha in baahidii dadka xanuunada maskaxda qaba la daboolay balse in badan oo ka mid ah oo bisha Ramadaan awgeed laga xidhay makhaayadii iyo hudheeladii ay wax ka cuni lahaayeen ayaa u baahan in hoos loo eego. runtii wax wanaagsan dadka fiyoobi inay u arxamaano xataa dee timir yar wax yar oo ay cunaan ay quutaan dee in la siiyo oo runtii dadka walaalaheena muxsiniinta ee wanaagsan magaalada jooga ee dadka arkaya in ay u sameeyaan meelo dadka adduunka haysta ganacsadayaasha ee magaalada jooga ay u sameeyaan meelo ay wax ka cunaan oo kale oo runtii dee iyaga dee Ilaahay ba ka dhaafay oo lama oranayo maxay u sameeyaan xaraan baa la siinaya midna maaha oo wax xaq u leeyihiin.